Salaamu Ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa kaalinka waxbarashada Harsan Academy qaadanaynaa Practical 2. Practical 2-geenana waxa uu ku saabsan yahay sida kombiyuutarka loo damiyo, restart iyo sleep mode loo geliyo. Saddexdaas qodob ayaynu ku qaadanaynaa. Isla socod wanaagsan. Ugu horreyn waxaynu imaanaynaa haddaynu u baahannahay inaynu damino kombiyuutarka. Waxaan imaanaynaa halkan start button. Buttonkaas ayaan imaanaynaa. Farshanadu way ku kala duwan yihiin. Hore cashirka kan ka horeeyay ayaan kusoo sheegay. Waxaan idhi waxay ku xiran tahay hadba qaabka uu ekaanayo kombiyuutarkaaga. Farshanka window ee adiga kugu jira ayay ku xiran tahay. Aniga sidaan hore usoo sheegay waxaan isticmaalaa window 11 ayaan isticmaalaa ama windowga 11aad ayaan isticmaalaa. Buuggan waxaynu kusoo qaadanay example ku saabsan window 10 ama windowga 10aad ayaan kusoo qaadanay. Wax sidaa u badan ku kala duwana balse xogaa difference wuu jira ama farqi wuu jira. Okay, halkan ayaan imaanaynaa start button. Halkan ayaa waxaa la yiraahdaa start button. Halkan ayaan imaanaynaa. Halkaas markii aan click siino anigu qaybtan ayuu igu soo bandhigaya. Waa kan power icon, waa ka kaas ayaa la yiraahdaa power icon. Calaamadaas ayaan click siinaya. Hadda kaliya falartamka way is dul saaran tahay. Laakiin click ayaan siinaya. Click markii aan siiyo wuxuu ii soo saaray afarta option ayuu ii soo saaray. Afartan option uma wada baahni. Kaliya waxaan u baahanahay saddexdan option ayaan u baahanahay. Kow waxaan ku horumarayaa optionka dhexe ayaan ku horumarayaa. Waxaa la yiraahdaa shut down. Waa daminta kombiyuutarka ayaa loo isticmaalaa. Qeexitaanka meesha fiiri. Wuxuu ku yiri ama closes wuxuu xirayaa all apps dhammaan abyada ama softwareada and turns off. Sidoo kale wuxuu daminayaa the PC personal computer. Kombiyuutarka ayuu ka daminaya. Kaas waxaa la yiraahdaa shut down. Anigu marka haddii aan ku dhufto shut down haddii aan ku dhufto wuu damayaa kombiyuutarka si toos ayuu u damayaa. Sidoo kale waxaynu isticmaalaynaa screen recordingka kombiyuutarka ayaan isticmaalaynaa oo cashirkan practicadiisa ayaan ku duubaynaa. Sidaa awgeed suuragal nooma ahan inaynu wada damino. Qodobka labaad aanu imaano. Qodobka labaad waxaa la yiraahdaa waa midkan hoose. Restart ayaa la yiraahdaa. Waa maxay? Waa kan closes all apps. Wuxuu ka xirayaa dhammaan applicationada. Turn off the PC. Wuxuu daminayaa kombiyuutarka and then turns it on again. Mar labaad ayuu soo shidmayaa. Waxa uu isdaminaya waa sida taleefanka oo kale. Restartiga taleefanka xitaa wuu leeyahay. Inuu taleefanka uu damo kadibna iskii uu dib u soo kaco mar kale uu soo shidmo. Kaas waxaa la yiraahdaa restart. Badanaa waxaa la sameeyaa markii culays la dareemo. Markii culays la dareemo ayaa la sameeyaa. Optionka saddexaad oo noogu dambeeya marka waxaan ku qaadanaynaa sleep mode. Waa kan sleep mode. Waa kan. Waa maxay? The PC stays on. Horta kombiyuutarku wuu shidnaanayaa but uses low power. Balse wuxuu isticmaalayaa low power. Wuxuu ka xirayaa screen-ka ka xirayaa mugdi ayuu ka wada dhigayaa. Apps stay open. Abyada ama softwareadana way ku furnaanayaan. So when the PC wake up sida awgeed markii PC-ga aad soo kiciso you are instantly back up. Sidoo kale si durbadiiba dib ayaad ugu soo laabanaysaa where you left off halka aad kaga tagtay. Waa maarta hawlihii iyo applicationadii wixii iyo ka xiri maayo wixii way ku wada furan yihiin. Sida awgeed dib ayaad ugu soo celin kartaa. Marka practical 2-gani wuxuu ku saabsanaa saddexda qodob ayuu ku saabsanaa. sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.